بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود إذا لحان تيمبا meel kastoo muuqeegu codkaygu idinka soo gaadhayo ku soo dhawaada wixii war naga soo gaadhay geega Soomaalidu dogto iyo guud ahaan dunida inteeda kale halka aad wararka si toos ah kula socotaan waa xarunta guud telefishinka caalamiga ee badda 24 TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda waa Somaliland warka waxay inoo socodsiinayaan hadii ay baarxamaankii raalli ka ahaado anigoo ah Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame qodobada daawadayaal warkayga habeenimo ku daawan doontaan kuwa ugu doorka roole waxaa kamid ah maamulka gobolka Gabiley iyo ka degmada Togwajaale oo si wada jira u soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay intii ay xilka hayeen jaamacadda Armas oo ay maanta ka qalin jabiyeen dufcaddii 12aad ee wax ka barata jaamacaddaasi taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland maamulka gobolka Sanaag oo dhexdhexaadin ka dhex wada laba beelood ee dhawaan shaqaaqa ku dhex martay gobolkaasi daawadayaashadan jecelnahay kuwaasi waxay ahayn qaar kamid ah qodobada ugu waaweyn warkeenani habeenimo imikay haatan isku diyaariyo qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan